الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد إن شاء الله waxaan soo koobaynaa cell unuga cell ayaan soo koobaynaa. Cell is the basic unit of the life waa unitka asaasiga ee noolaha ayaa waxaa loo yaqaanaa cell loo yaqaanaa. Jirkeena caadiga wuxuu ku samaysan yahay cellal oo unugyo isku tageen ay ka samaysan yihiin marka unugyadaas isku tageen kadibna waxaa waaye tissue noda ay noqdeen, nodahaas isku tageen kadib organ ay noqdeen, organkaas isku tageen system ay noqdeen, systemska ayaa isku tageen organism noole. Marka cell waa unug. Marka a cell unuga is a basic unit is a basic structure and functional unit of the life. Waa unitka asaasiga ah ee noolaha waxaa loo yaqaanaa cell. Waa cell unuga is a basic structure waa qaab dhismeedka asaasiga ah iyo functional unit of the life. Unitka asaasiga ee functionka u qaabilsan noolaha ayaa loo yaqaanaa markaa cell. Waa unitka oo unitka qaab dhismeedka asaasiga ah ee noolaha ayaa waxaa loo yaqaanaa cell loo yaqaanaa cell. All living organisms dhammaan nooleyaasha oo dhan oo sida plant dhirta, animals xayawaanada are made up waxay ka samaysan yihiin marka cell ayay ka samaysan yihiin. Cell unuga is the building block of life. Waxay dhisayaan marka waa jirka the building block of life. Nolosha asaasiga ah ay dhisayaan marka unugyada ama unugyada asaasiga ah ee noolaha ayay dhisayaan. Discovery cellka waxaa markii hore shaaca ka qaaday Robert Hooke, nin loo yaqaan Robert Hooke ayaa shaaca ka qaaday Robert Hooke rediscovered cell in 1665 while observing cork under a microscope. Yacni sanadka markuu ahaa 1665 sanadka markuu ahaa ayuu unuga shaaca ka qaaday ninka loo yaqaan Robert Hooke wuxuuna indhindheen ama baxthi ku sameeyay cork waa geedka oo qaybta qolofta ah under a microscope. Wuxuuna la aaday marka microscope ayuuna la aaday. These were dead cells. Kuwaan marka unugyadan waa unugyo dhinteen way ahaayeen marka waxaa waaye dhirta qaybta qolofta oo kore qolofta dhimatay ayuu soo qaatay microscope ayuuna la aaday kadibna waxaa waaye meesha waxaa ugu soo baxday marka unugya ay ugu soo baxeen marka. Types of cells noocyada unugyada prokaryotic cell iyo eukaryotic cell waxaa loo qeybay marka laba ayaa loo qeybiyaa oo ah marka prokaryotic cells unugyo bu'dooda aan habeysnayn iyo eukaryotic cell iyo unugyo bu'dooda habeysan tahay. Ama sidoo kale waxaan dhahaynaa prokaryotic cell unugyo oo bu' sax aan lahayn iyo eukaryotic unugyo oo bu' sax ah leh ayaa loo yaqaan. Baro yacni waxaa waaye oo false waaye ama not true. Waxaa waaye yacni waa true waa marka. Prokaryotic cells unugyada bu'dooda aan habeysnayn not true nucleus bu' sax ah ma lahan. Tusaalaha bacteria ayaa ka mid ah. Tusaale
Eukaryotic-na waa unugyada bu'doodu habaysan tahayna half and true nucleus waxay leeyihiin bu' sax ah ay leeyihiin an organelles iyo xubno sax ah ay leeyihiin e.g. tusaale Palanthus ayaa ka mid ah Animalis ayaa ka mid ah Palanthus iyo Animalis ayaa ka mid ah dhirta iyo xayawaanada ayaa ka mid ah waa badan yihiin marka waa laba hab ayuu kusoo qaatay buuggeena waxaa ka mid ah oo fish ayaa ka mid ah oo malaayga ah waxaa ka mid ah oo amphibianiska ayaa ka mid ah beerbiyoodka oo raxa iyo ka mid ah waxaa ka mid ah oo birds shimbiraha ayaa ka mid ah ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah birds ileen waxaa waaye 5 waaye Palanthus, Animalis, birds, amphibians, fishes okay main parts of the cell qaybaha ugu muhiimsan ee unugga uu ka kooban yahay main parts of the cell qaybaha ugu muhiimsan ee unugga uu ka kooban yahay waxaa ka mid ah cell membrane xubka unugga outer layer waa layerka ugu sareeya waaye controls wuxuuna xukumaa enter and exit of the substance waxyaabaha jirka soo galaya iyo waxyaabaha ka baxayo ayuu kontroolaa cytoplasm waa qaybta dhexda ku taalo unugga qaybtan dhan unugga ku dhex deesan waxaa loo yaqaanaa cytoplasm loo yaqaanaa jelly like waaye xoolaha u eg sida oo gel halkan oo kareenka jeelka camal u eg oo dheecaan oo jelly like fluid where organelles floating meesha waxaa waaye xubnayaasha ay dhex sabeeyaan ayaa loo yaqaanaa cytoplasm loo yaqaanaa nucleus waa bu control waxaa center qaybta dhexe ayuu xukumaa ama xarunta unugyada waaye contain DNA wuxuuna ka kooban yahay marka DNA ayuu ka kooban yahay mitochondria power of house ayaa loo yaqaanaa ama power of house of the cell waxaa qaybta unugga ama guriga unugga ama qaybta tamarta laga soo saarayo waxaa loo yaqaanaa mitochondria produce energy waxay soo saaraan energy ama power of house waa loo yaqaanaa of the cell waa guriga unuggana waa loo yaqaanaa tusaale marka yacni waxaa loo dhahay waxay soo saaraan ayaga tamar ayay soo saaraan ribosomes waa qaybta borotiinka ay sameynayso waaye synthesis protein waxay sameeyaan ayaga borotiin ayay sameeyaan endoplasmic reticulum ay waxaa loo qeybiyaa marka labo oo rough endoplasmic reticulum iyo smooth endoplasmic reticulum rough endoplasmic qayb waxaa marka oo rough ah waaye oo yacni aan simnayn smooth endoplasmic reticulum waa qayb siman ay marka waxay endoplasmic reticulum waxay qabataa transport materials waxay dhoofisaa marka walxaha ayayna dhoofisaa okay Golgi apparatus waa packages waa qayb oo qalabyada aan transport proteins waxay dhoofiyaan protein package waxay leedahay idan package walxaha oo borotiinka lagu dhoofiyo oo badanaa marka Golgi apparatusna waa loo yaqaanaa okay lysosomes waa digestive waxay burburisaa waxyaabaha wasakhda ah ama waxyaabaha oo sunta ah suicidal bodies
digest waste waxay markay burburisaa wasakhda. Vacuole weel waaye isagana. Store waxaa lagu keydiyaa marka water biyihi ayaa lagu keydiyaa nutrients iyo nafaqada. Large in plant cells marka dhirta la joogo marka waa weyn yahay marka waa large unugii waa weyn waa animalskana waa weyn. Cell walls derbi unugeed unugii qaar marka derbi ma laha. Hadda waxaa laga hadlayaa marka cell wall waa derbi unugeed only in plant. Cell wall waxaa leh marka xayawaanadani plant ayaa leh. Xayawaano kale leeyihiin sidoo kale oo cell wall leh jiraan. Algae ayaa kamid ah cell wall ay leeyihiin. Provide support waxay bixiyaan marka taageero ay bixiyaan. Okay, chloroplast waa midowey waa isaga only in plant waxaa laga helaa marka dhirta ayaa laga helaa kaliya iyo algae. Okay, some bacteria qaar ka mid ah bacteriadana waa laga helaa. Performance photosynthesis ayaga waxay hirgeliyaan cunto samaysanka ay hirgeliyaan. Contain waxayna kooban chlorophyll ayayna ka kooban yihiin qabta ama cagaariye. Okay, cell theory aragtida oo unuga by marka ninka loo yaqaano waxaa aragtidan soo sameeyay marka Schlieffen ama Swan iyo Virchow waa niman magacoodu waay. Waxay dhahay marka all living things dhammaan nooleyaasha oo dhan are made of cell. Waxay ka samaysan marka unug ay ka samaysan aragtida koowaad. Aragtida labaad cell unuga is a basic unit of life. Waa unitka asaasiga ee noolaha waaye. Yacni waa qaab dhismeed asaasi ah ama shaqo unit oo asaasi ah ee unuga u shaqeeyana waa lahaa sidoo kale. Cell is the basic unit of life. Waa unitka asaasiga ah ee noolaha waaye. Fikradda ama aragtida labaad. Aragtida saddexaad all cells dhammaan nooleyaasha oo dhan come from waxay ka yimaadeen pre-existing cells. Unugii hore u jiray ayay ka yimaadeen. Okay. Human body cells unugyada jirka bini'aadamka around waxaa ku wareega marka 37 trillion cells unugyo gaaray marka 37 trillion. Include waxaa kamid ah nerve cells ayaa kamid ah unugga dareemayaasha. Muscle ayaa kamid ah unugyada murqaha. RBC ayaa kamid ah unugyada cas. WBC ayaa kamid ah unugyada cadcad iyo skin cells iyo unugyada maqaarka ayaa kamid ah. Okay. Fun factor now. Okay. Unugyada marka kuwooda ugu yaryar. Longest cell unuga ugu dheer ama unuga ugu dheer marka waxaa plant unuga ugu dheer waxaa nerve cell waa nerve cell unuga dareemayaasha. Largest cell unuga ugu weyn waa ostrich egg waa ugxanta goronyada. Cell unugyada are visible only waxaa lagu arki karaa marka under microscope bis ayaa lagu arki karaa weynaysiga. Okay, halkaan ayuu ka keenayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.